waxay yidhahdaan qoraacaana oo braziliana Paulo Coelho bay yidhahdaan Paulo Coelho waa nimanka buwaagta ugu badan ee dunida la iibsada leh almost waxaan filayaa 150 million copies ka badan inay bookisku gaadhayaan 150 milyan wax ka badan waa the second man bay yidhahdaan dunidaba saa waxu publish gareeya waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabkee wax tiriya heesaha iyo riwaayadaha iyo waxaa sameeya markii dambana noqday qoraa novelladan iyo waxa la qoriya waxa kan sameeya iminkana United Nations ka buu malaa u yahay rajul salaamka dunida qisaskiisa waxa ka mid ah qiso yar oo kooban shaka yar oo kooban buu qoray shakada kooban uu qoray wuxuu yidhi oday baa jariidada akhrisanayay buu yidhi dabeetana inan yaro u dhalay ayaa mashquuliyey markuu isdhaahdaa rogba ku yarba su-aal weydiiyo mashquuliyo kan yar iska mashquuli buu isnaysiidhi marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashi maabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyey markaasuu intuu u dhiibay buu yidhi halkaa fadhiso dunidii dib isugu rakib maabkii dunida samee wuxuu isla haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo qisadu waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu kii yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey odaygu su-aal buu weydiiyey war ma hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi markaasuu yidhi may hooyo jugraafiga ma dhigto dad saad u samaysay buu yidhi waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawira xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii un baan isku hagaajiyey buu yidhi gacanta iyo lugta iyo adinka iyo isugee dee dunidina way isku hagaagtay markaan qofki isku hagaajiyey dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmad ah waasaa maamahaan soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaasaa waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye that's the real world noloshu waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo duniduba way duntaa qofka bini aadamka caqiidadiisa mabaadi'diisa valueskiisa xorriyadiisa cadaaladii waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan markay dumaanna wuu dumaa